السلام عليكم صاحبيال kusoo dhawaada sheekadeenna maanta waxaa kusoo qaadanaynaa qiso dhab ah. qisadan maahan filin manaahan mala awaal, waa qiso dhab ah oo ka dhacday waddanka Faransiiska, gaar ahaan caasimadda Paris. inta aan u gudagelin qisadeena, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarteed, share-na sii dhahdeed si ay u gaaraan dadka jecel qisooyinka ama sheekooyinka dhabta ah. waxaan kaa codsanayaa adigoo mahadsan inaad ii saartid subscribe si ay kuu soo gaaraan sheekooyinkeena soo socda. haddaba sheekadani waxay ku bilaabanaysaa waa kuma Ilan Halimi. Ilan Halimi wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah. wiilkaas oo ku dhashay waddanka Faransiiska, gaar ahaan caasimadda Paris. wixii da'diisu ahayd 23 jir markii la afduwanayay, waxayna ka bilaabatay afduubkiisa inay soo wacdo qof dumar ah, weliba iyadoo ka codsanaysa inuu la kulmo si ay ula sheekaysato asaga. balse waxay maleegaysay qorsho aad iyo aad u xanuun badan oo asaga ila rabtay ama la damacsaneed. markii uu la hadlay, wuxuu ka ogolaaday in uu la kulmo iyada, asigoo qadarinayo dumarka ixtiraamka ay leeyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin. wuxuuna u haystay inay tahay sheekiska caadiya iyo isbarasho asxaabtinimo, isla markaana inuu isku soo diyaariyey la kulankeeda. wuxuuna soo aaday goobta ee ku balamisay. isla goobtaasi markuu yimaadeen, waxaa ku diyaarsanayba raggii qorsheynayay inay afduubtaan. waxaana loo afduubtay sidii loo qorsheeyey, waxaana la geeyey goobtii loogu talagalay in lagu afduubto laguna dhibaateeyo asaga. waxay ka xireen wejiga, ayagoo wejiga wax madow ugu xiray, waxayna seexiyeen dhulka. waxayna ku qabteen biskoolad, sawir ayay ka soo qaadeen, waxayna la soo wadaageen ehelkiisa si ay u weydiistaan madax furasho. isla markaana Ilan Halimi wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah, aad u degan, jecel waxbarashada, jecel riyooyin badan lahaa, jecel inuu heer sare gaaro. dadka asxaabtiisa ehelkiisana waxay markasta ku tilmaami jireen inuu ahaa qof degan oo afgaaban, laakiinse muusan haysanin wax lacag ah. balse tuugadii afduwatay ama qolada burcadda ahayd ee ninkani dhibaateynaysa waxay u haysteen inuu leeyahay lacag, maadaama uu ahaa qof degan, diintiisana ku adag. isla markaana waxaa dhacday inay weydiisteen ehelkiisa lacag. ehelkii way heli waayeen lacagtaasi. intay lacag tiraadinayeen, waxay u geysteen jardil badan, dhibaato badan. markii laga soo wareegtay muddo 23 cisho ayaa ninkii inay qabteen ayay waxay ku soo tuureen asigoo sakaraad ah boosteejada tareenka ee caasimadda Paris. halkaasi waxaa joogay dad shacab ah oo markaasi safar. isla markaana waxay wargeliyeen qoladii booliiska iyo caafimaadka ayay wargeliyeen. si degdegan waxaa halkaasi ku soo gaaray booliiskii iyo ambulansti. waxaa la isku dayay in loo fidiyo gargaar degdeg ah, balse goobtaasi ayay nafta uga baxday. way awoodi waayeen inay badbaadiyaan. qof kasta ayaa la weydiiyey, waxaana gartay ehelkiisa. isla markaana ehelkiisii waxaa la weydiiyey waqtiga uu ka tagay gurigiisa iyo waqtiga ay waayeen iyo meesha laga soo wacay. baaritaankii ayay sameeyeen. baaritaankaasi ay ku heleen tuugadii afduwatay. ehelkiisa ayaa laga wareystay Ilan Halimi muxuu ahaa, muxuuse qaban jiray. waxay sheegeen inuu ahaa qof riyooyin badan leh oo jecel mustaqbalka inuu gaaro heer sare. wuxuuna iska ahaa qof degan, afgaaban. balse waxay yidhaahdeen ma naqaano, mana garanayno qaabka loo afduubtay. weligiisana muusan aadin meel uusan aqoonin iyo dad uusan aqoonin. qoladii ka dambeysay afduubkiisa iyo dadkii dilay waxaana la keenay maxkamadda, waxaana lagu xukumay xabsi daa'in, halka dadkana loogu digay in ay joojiyaan dad aysan aqoonin inay la kulmaan. qofkuu doona ha ahaado, qof kastoo ku soo waca in aadan la kulmin. cid kastoo ku soo wacda ee kugu hanjabta inay ku dili doontane waa inaad la wadaagtaan ciidamada kugu dhow ama goobta kugu dhow ee markaasi amniga laga sugo ee booliis ay joogaan. qisadan waxay ahayd qiso la yaab leh. wiilkaasina wuxuu ahaa 23 jir. Ilan Halimi waxaa la afduubtay Janaayo 2006. waxaa meydkiisa la helay 13 February 2006. waxayna u geysteen dhibaatooyin aad u badan. qisadan waxaa ku xigta qiso kaloo aad iyo aad u xiiso badan ee ka dhacday waddanka Jarmalka. fadlan haddaad xiiseynaysid si uusan ku dhaafin qisadaasi, fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad like saartid oo tii sheergaraysid muuqaalkayga. waxaana idinka codsanayaa inaad wixii fikirkiina ah commentiga inaad igula wadaagtaan. waa walaalkiina Wadani Baxar oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.